بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed waxaan insha Allah ta'ala idin wadaagi doonaa oo aan idin soo wadnaa koorasyo kala duwan oo aad ka faa'iideysan doontaan oo funuunta noocyadeeda kala duwan haday noqoto jaanibka maadiga iyo haday noqoto jaanibka diiniga ba insha Allah ta'ala waan idin soo bandhigi doonaa annagoo insha Allah ku soo casuumi doonaa khubaro kala duwan oo ku takhasusay funuunta noocyadeeda kala duwan waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah ta'ala inaanu insha Allah idin soo jeedino infrastructureska dalka kaabayaasha dhaqaalaha iyo sida loo horumarin karo annagoo insha Allah ku soo casuumi doonaa rag badan oo ku takhasusay dhaqaalaha rag badan oo ku takhasusay engineernimada iyo architecture-ka iyo sida wadanka loo dhisi karo rag badan oo ku takhasusay biyaha rag badan oo ku takhasusay sida biyaha muxuu ahaa in uga faa'iideysan lahayn rag badan oo ku takhasusay waxbarashada iyo sida caafimaadka iyo adigu infrastructureska noocyadiisa kala duwan dad badan oo muxuu ahaa aqoon u leh ayaan insha Allah ta'ala ku soo casuumi doonaa barnaamijkan waana taxanaw socon doona ayuu noqon doonaa annaguna maanta waan furaynaa maanta tijaabo ay naga tahay inaanu tijaabino barnaamijka kiisi koobaad marka aad iyo aadna waan idin salaamayaa si aad insha Allah ta'ala oo qayb uga noqotaan aad u sii faafisaan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe kana saartaan share tana saartaan si aad dhamaan ummadda Soomaaliyeed aad u sii gaarsiisaan arinta maanta waxaan jecelahay inaan ku bilaabo موضوع ير أنا أركي إني مهم تهاي إنك تجابي كتهاي وحن كل بلاب دونا إن شاء الله take care of yourself موضوع لا هذا كتحدر نفط هذا أو تحدر كم وجه نفط هذا موضوع لا أي إن شاء الله تعالى كوسو بندق دونا موضوع عن كهذا دونا إن شاء الله تعالى وحول لا تعلقة health مع عافيمات أو لا تعلقة ي wellness أو عافيمات يبتقب لبضع إن شاء الله تعالى أي كتخصصا waxaan idin soo bandhigi doonaa definitionskooda maxay yihiin caafimaad muxuu yahay badqab muxuu yahay waxaan sidoo kale idin soo bandhigi doonaa three aspects of the health saddexda ugu muhiimsan caafimaadka oo ay ka mid tahay mental and emotional health qofku inuu caafimaad qabo psychology ahaan qofku inuu caafimaad qabo maskax ahaan qofku inuu caafimaad qabo dareen ahaan qodobka labaad aan doonayay sababna waxa weeyaan physical health oo ah qofku inuu jir ahaan uu caafimaad qabo qodobka saddexaad oo social health oo ah qofku inuu bulsho ahaan uu caafimaad qabo saddexdaas shay baan insha Allah ta'ala bal definitionskooda iyo faa'iidooyinkooda iyo waxyaalaha ay muhiimka u yihiin baan idin soo bandhigi doonaa waxaan ku soo xiri doonaa conclusion iyo gabagabo yar oo summary ku soo sameyn doona insha Allah iyo recommendations oo talooyin aan soo jeedin doono waxaan ku bilaabi doonaa horta in caafimaadka alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad buu ina siiyay dhamaan aniga iyo idinkiina daawanay ilaahay subhanahu wa ta'ala wax lagu mahadnaqo way intuudu nicmatallahi la tahsuha hada ilaahay baa hada nimcadeeda isku daydaan inaad soo koobtaan nimcooyinkayga ma koobi kartaan nimcadana waxa kamid ah caafimaadkuna waa crown waa taaj saaran qofka xanuunsanaya waa qofka caafimaadka qaba waxana arki kaliya qofka xanuunsanaya qofka caafimaadka qaba ma arki kara caafimaadka uu haysto just waxa arki karayo qof sariir saaran qof bukaana qof meel xanuunaysa ba arki kara caafimaadku faa'iidooyinka uu leeyahay marka caafimaadku waa xaalad jir ahaaneed maskax ahaaneed social ahaaneed iyadoo jiraan variety different definitions kala duwan oo have been used for a different purpose and over time oo jiraan xaaladooyin kala duwan loo isticmaalo iyo waqtiyo kala duwan laftigoodaba loo isticmaalo definitions kala duwan bay leeyihiin xaaladooyin ku kala haboon marka caafimaadka definitionskiisa la siinayo sidoo kale markaynu ka hadlayno kelmadda wellness oo ah badqabku muxuu yahay badqabku waxa weeye in positive steps loo qaado talaabo wanaagsan oo dhanka positive ka loo qaado oo ku wajahan dhanka caafimaadka wanaagsan iyadoo mas'uuliyad laga muujinayo sida caafimaadka loo wanaajin lahaa waayo go'aanka qaadataa wuxuu kor u qaadi karaa the quality of your life oo tayada noloshaada in noloshaadu tayo lahaato inaad ahaato qof fit ah oo caafimaad qaba ay qayb ka qaadan kartaa inaad wellness-kaagana aad ku dadaasho marka ay caafimaadku waa xaalad jir ahaaneed maskax ahaaneed bulsho ahaaneed maxaan nidhi badqabkana waa talaabo wanaagsan oo loo qaadayo dhanka caafimaadka dhanka wanaagsan iyadoo oo muxuu lagu dadaalayo go'aanaadka hadba marka la qaadanayo si tayada nolosha iyo caafimaadka
muxuu loo wanaajiyo tayada noloshaba si loo wanaajiyo